waxaanu tabaynaa codka magaalada caasimadda ee Garowe waa cod aad loo buuburiyay dadka inta leegina ma aysan codayn dadku waxay ka hooseeyaan ilaa 18 iyo dhowr boqol weeye 7,000 iyo siyaado xisbiga mataqaana ka markuu ku fashilmay wax coda waayay 2-3 kun meelaha helay ayaa codka noocaas loogu daray mana aha cod sugan codkaas 25 kun oo cod ma sugna dadkaas ma codayn 3 meelood 2 meelood baan codayn magaalada caasimadda maxaa ku xaqiijiseen marka inaysan tiradaas codayn waxaan ku xaqiijinay waxa noo joogay wakiilo goob joogayaal anaga kormeer ahaynoo waxaynay dadka aad bay u hooseysay isu soo baxooda iyo mataqaana ka qaybgalkooda doorashadu aad buu u hooseeyay sidaa darteed waana haysanaa kulli dokumentiyadii naloo ka baahnaa iyo dokumentiyadii ay la wadaagayeen baalku aad iyo aad bay natiijadu intaa uga yarayd codbixinta marka arrintaas goormaad ogaateen ma intii ay doorashadu socotay mise intii ay natiijada hordhacahay ay soo baxday waxaan ogaanay waa ku dhex jirnay shaqadaas aan 6 subaxnimo bilownay ilaa iyo 6 saac habeenimo baan ku dhex jirnay waanu ogeyn laakiin tirada ay ku dhawaaqeedu waa dambeeyay laakiin waanu ogeyn dadku soo bixiisu inuu aad u yar yahay oo xadadan yahay waa ogeyn marka tabashada haddaad qabteen ma la hadasheen oo wax xiriir ma la samayseen guddiga hawsha qaabilsanaa ee doorashada guddiga si joogtaa baan waxaan ugu gudbinaynay cabasho joogtaa qaladaadka socda markii aanu aragnay in lagu dhawaaqay baanu ka cabanay markii hore waanu ogeyn waxyaabaha socday qaladaadka jiray wax dhan waanu ogeyn gareynay joogtaa wixii bood gareynay axsaabtuna waa wadaagaysay iyo beegba maxay idinku jawaabeen marka hadda kadib hadda cabashadan gaarsiiseen weli ma aysan jawaabin waana u gudbinay insha Allah si rasmi oo documentation insha Allah taala waa ugu gudbinaynaa oo gacantaana ku haynaa hadii alla diido marka maxaa xigaya oo tallaabo ah oo ka xisbi ahaan qaadaysaan oo inii xiga anagu si rasmi ah waxaan u gudbinaynaa qoraallo iyo mataqaana dacwada u gudbinaynaa haddii mataqaana dacwadda wax laga qaban waayo anagu mar walba shacabka Puntland iyo dimuqraadiyadda Puntland ee mataqaana dawladaha hoose mar walba waa jeclay in faylkaasi Puntland ka xirmo laakiin cabashadu waa ku khasbanaa inaan gudbino dareenkayga gudbino iskaashi axsaabta ka dhaxeeyaan insha Allah wixii final kaga jawaabi doona hadii alla